بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسيغاني ودرسيغي صدحات وكمذا دروستي أنو قهد ليني أحكام تكسابسا صونك بشهر رمضان درسيغان درسيغي كهري وحانو قصو هذا حكم كصوم كرمضان كأولي هي وحانسو شيغني إنو كمد يهي أركانتا إسلامك أو شنتا وحانكلو قصو هذا فضلك صونك بشهر رمضان درسينا مانتا وحو كسابسن يهي عقوبة تارك الصيام قفك صونك كتغي عقوبة أوليه وح آد لوغا حمادا إن أي كتشران مسلمين تدحديد لغا هلاهيو ضد أن احترامين إلهي أبورتي خالقها رازقها أن احترامين وان شرعيسي احترامين وان بشهر رمضان يحرمديدي أن احترامين أن احترامين dadka muslimiinta ah mashaacirtooda iyo dareenkooda aan ixtiraamayn oo maalinta ramadaan oo ilaahay uu ka reebay inay cunaan iska cunaya iska cabahaya iyagoon dareemayn wax mas'uuliyada inay saaran tahay maalinta ramadaan in la afuro xukunkeedu muxuu yahay marka koobaad inuu qofku afuro maalinta ramadaanka isagoon cudurdaar sharciya haysan waxay ka mid tahay muharramaadka waxyaabaha ilaahay xarimay waxyaabaha ugu waaweyn ayay ka mid tahay macaasida waaweyn ayay ka mid tahay imaamka la yiraahdo al-imaam adh-dhahabi la yiraahdo wuxuu yiri وعند المسلمين مقرر أن من ترك صوم رمضان من غير عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة wuxuu yiri muslimiinta agtooda waxa ka sugan qofka كتغا صوم كرمضان عذر الآن إنه كشر بدنيه قفك زانيقة قفك خمريعبك أو خمرتك بل وحي كشكيان مسلمين تو قفك إسلام مديس أو وحي كمليان أو كتهمان الزندقة أورك قال نمو زنديق ومنافق وقت النبي عليه الصلاة والسلام عصر النبوة منافق يالو أقونشري لكن وحي كدن بيي وحلو يقاني زنديق وقفك uurka gaalka ah laakiin afka islaamnimada ka sheegta marka qofka bisha ramadaan soonkeeda ka taga muslimiinta agtooda saasu ka yahay ayuu yiri imaam adh-dhahabi inuu awalan ka shar badan yahay qofka zaaniga iyo qofka khamriyadka ah islaamnimadiisna shaki laga qabo loona malaynayo inuu yahay uurka gaal u yahay ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu nabigiisa tusiyay cadaabka dadka afura bisha ramadaan ayadoon la gaarin waqtiga afurka nabigu alayhi salatu wasallam wuxuu dadkaas ku arkay suura la arko suurooyinka ugu foosha xun oo ugu xun ugu qabiixsan ayuu ku arkay wuxuu arkay iyagoo cirbaha inta laga suray meel sare laga soo lulay la soo caliqay sida marka xoolaha la qalo ariga la qalo meel loo suro oo lagu hiina kor la mariyo madaxina hoos la soo mariyo iyadoo daamanka iyo yaani afka ka sii deynaya dhiig ka sii deynaya wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam anigoo habeen jiifa ayaa waxa ii yimid buu yiri laba nin yani waa laba malag oo suuradii insaanka kale leh labadii nin baa ii timid labada cududood bay qabteen buu yiri way kaxeeyeen waxay geeyeen buu yiri meel buura oo aad iyo aad in la fuula ay dhib badan tahay markaas ay waxay yiraahdeen fuul buurtaan markaas waxaan ku yiri ma awoodo inaan buurtaan fuulo markaas ay waxay yiraahdeen anaga ku sahlanayn ku fududeynayna fuul buurtii baan fuulay buu yiri markaan buurta dhaladeeda joogo ayaan waxaan maqlay buu yiri qaylo aad iyo aad u daran qaylo aswaad yeeraysa qaylo dhaan aad iyo aad u daran ayaan maqlay buu yiri markaas waxaan ku yiri maxay tahay qaylo dhaantaan markaas waxay yiraahdeen waa cabaadkii ama qaylo dhaantii ama baroortii dadka ahlu naarka weey qaylada ka yeeraysa kadib way wadeen buu yiri waxay ii geeyeen buu yiri dad meel la soo sursuray oo cirbaha inta wax laga suray kor laga soo lulay dadkaasoo daamanku ay dilacsan yihiin qowlalada ayaa dilacsan markaas haddana waxa ka daahay qowlaladii iyo daamankii afkii dhiig u ka daahayo markaasna waxaan iribu yiri maxay yihiin kuwaanina markaas waxay iraadeen buu yiri waa kuwa afura inta aan la gaarin waqtiga afurka aan la gaarin marka hadii sidaan loo ciqaabay dadkii afuray waqtiga afurkoon la gaarin ka hor maxaad u malaynaysaa qofka aan aslan ba soomin ba ka war qofka aslan ba aan soomin qofka bisha ramadaan soonkeeda ka tagay waa qof ilaahay ula banbaxay oo u cadaystay diidmo iyo macsiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala u cadaystay weey wuxuu halmaamay inuu caasiyay malikul muluk
ملك الملوك إنه عاصي أو أن وح عجز قالينا هي شيرين ملك يستمضبا هدو عاصين لها مدح ويني أمام مدح كم إذا مدح الدنيا ذا ولا أران لها والقرادنا هي هبل كي أدعسا كرادنا هي دي الأران لها قلبي سوء أرقح لها عقابك سوء كعبسن لها مركز سيبوسن وقعب سنين إلهي سبحانه وتعالى كما حشون قفك بشهر رمضان صون كذا كتجي وعنتظر إسكعونايا خالقي أبو ريك ما حشون رازقي كو أرزقي عنتظر وعناهي أو إلهي وكو عاصنايو كما حشون ميوسن كعب سنين إلهي إنه رزق كتشره ميوسن كعب سنين بيها عبهاي إنه كسحضه عنتظر وعناهي إنه يكون مرقته أو سبب النقطة هلاقي سبب النقطة أما إلهي وكقاضه عافماتك يأود إلهي أسي كعب سن ما هي وحكو كتسومي عفو إلهي iyo xilmigiisa iyo dulqaadkiisa ayuu ku kadsoomay markaas aysan u muuqan waxa uu sameeyay xumaanteed qofka bani aadamka adduunka hadii deeyma lagu yeesho oo deeyma badan lagu yeesho uu argagaxa hurdadu waaya wuxuu ku fakarayaa xolaas meeshu ka bixin lahaa iyo siduu deynka iskaga bixin lahaa ayuu ku fakarayaa ma uusan ku fakarin qofkan in deynti ilaahay ay ku taraakumtay oo isku dul fuushay day salaad tahay day zakat tahay day soom tahay day xaj tahay waxa laga yaabaa qofku inuu ku fakarin oo uusan ku fakarin xuquuqdii uu dayacay uusan ku fakarin oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kulaha qofka muslimka oo caaqilka marka waxa weeye waa qofka ku dadaala waxa anfacaya diinkiisa iyo adduunyadiisa oo naftiisa xisaabiya simbir xashada ay simbir xanayso kufka ay ku kufayso macaasida ku dhacayso qofka xisaabiya weeye si aysan naftii u sii ziyaadsan sharti iyo macaasida aysan u sii ziyaadsan waxa la rabaa nafta in la qabto oo la xisaabiyo naftoo la halmaamo iyo toobadoo dib loo dhiga oo la yiraahdo yaani bari saa dambe ayaa toobad keeni doonta waa tukan doonta waa soomi doonta dib u dhigaas toobada dib loo dhigo waxay ka mid tahay asbaabta qofka hoojisa oo u soo jiida carada Ilaahay u soo jiida naftuna haday macsiyada barato ku noqnoqoto waxa hadhowti dib ku noqonaya macsiyadaas inay ka baxdo oo firaaqa dib ku noqonaya bal waxay badalbaysa ziyaado markasta inay macsiyadii ku sii socoto oo mid uga sii boodo ay naftu dalbaysa marka qofkii lagu ibtileeyay soomka ramadaan inuu ka tago oo macsiyadaas weyn oo cadiimka lagu ibtileeyay waxa waajib ku ah inuu toobad keeno ilaahay inuu laabto ciqaabkii uu ka cabsado bisha ramadaan oo la afuro cudur la'aan waxay daliil u tahay oo ku tusinaysa qofkaas qalbigiisu inuu noqday qalbi faasida oo qalbi dhintay uu yahay oo sharcigii iyo diintii fududaystay dadka muslimiinta waxa ku waajiba qofka sidaasa inay maaragta ay ka nahiyaan waxa uu ku sugan yahay munkarkaas weyn oo ah inuu qofkii wax weey fududaystay waxyaabihii ilaahay uu xarimay oo rukni kamida arkaanti islaamka wax weey inuu ka tago ku dhiiraday in waxa waajiba in maaragta loo naseexeeyo oo aan loogu kaalmayn isagana waxa ku waajiba in ilaahay u toobad keeno intaan waqtiga ku dhicin oo aan mawdkii uusan si kada ah ugu imaan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weydiisanayna inuu nagu arzuqo amal saalix iyo cimri dheer iyo cibaado suuban soonka ramadaanna uu na gaarsiiyo caafimaad iyo baraare iyo bashbash nagu gaarsiiyo nagana dhigo kuwa ka faa'iideysta oo cibaadadoodana laga aqbalo dambigoodana lagu dhaafo sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in